qof hooyo dhibaataysan manahay hooyo awlaadi raagoon haysataanahay hooyo xalliye waxaan haystaa toon abeeraati ma jirto aqalkaasoo 8 bilood kiradii laygu leeyahay ayaan hooyo ummadda muslimka ugu qaylo doon diranayaa iyo awlaada yarar oo iga baahan waxaan ku shaqaystaa aanan haysan hooyo xanuunsanaysana aanahay. hooyo Raxma Cabdi Tarabi waa maamo danyar oo ku nool magaalada Boorama waxay haysataa 6 caruur ah oo iyadu korsatay qoyskan danyarta ma haystaan waxay cunaan iyo waxay ku afuraan midna waxayna bulshada islaamka ka codsadeen in la soo caawiyo sidoo kale hooyo Raxma waxay sheegtay in lagu leeyahay 8 bilood oo kira ah qol jiingad oo ay deganaayeen waxayna hooyo Raxma bulshada islaamka ka codsatay in la soo caawiyo maalmaha bisha barakaysan ee Ramadaan awgeed. xaqa Raxma Cabdi Tarabi anigoo la yiraahdo xaqa waxaan ka salaamayaa ummadda muslimka meel kasta joogaan bisha Ramadaan ay khayrka qabta hooyo qof hooyo dhibaataysan manahay hooyo awlaadi raagoon haysataanahay hooyo xalliye waxaan haystaa toon abeeraati ma jirto aqalkaasoo 8 bilood kiradii laygu leeyahay ayaan hooyo ummadda muslimka ugu qaylo doon diranayaa iyo awlaada yarar oo iga baahan waxaan ku shaqaystaa aanan haysan hooyo xanuunsanaysana aanahay. marka walaalahayga islaamka dal iyo dibad waxaan ka codsanayaa in ilaahay dartii bisha Ramadaan ay khayrka qabta igu soo caawiyaan ayaan walaalahayga islaamka meel kasta joogaan ba ka codsanaya hooyo awlaadeydina weyniga arkay anna tiiftayda weyniga ay arkay hooyo inaan waxba haysanin 8 bilood kirada aqalka laygu leeyahay waxaan haystaa haba yaraatay hooyo toona ma jirto weyniga ay arkay noloshan ku noolay awlaadeydu waa kuwa garaf dhawo 6 agoona labana inan ba ilaahay dartii iigu haysa oo wax iigu barta wax habeenka caawaan haystaana ma jirto jaarka iyo ummadda muslimka ku noolay hooyo ilaahay dartii igu soo caawiyo ummadda muslimka meel kasta joogaanba waana xaafadan deganayna hooyo waa xaafada fardaha 8 bilood baa kiradii laygu leeyahay waana $30 awlaada raagoontaana wax eheliyada iyo gacala aan habeenka caawa ula galo amba aan ileeyihiin ay magaalada ku leeyihiin ma jirto Jabuuti baan ka yimid qof masaafir aan ahay sanad baan hooyo magaalada jooga 8 bilood baan laygu leeyahay aqalka kiradiisii oo $30 marka ummadda muslimka waxaan ka codsanayaa hooyo ilaahay dartii in ay igu soo caawiyaan ay wax igu soo siiyaan gaashaan iyo garab ummadda muslimka ay wax aliye waxaan haystaa habeenka caawatoona hooyo ma jirto ilaahay dartii igu soo caawiya bisha khayrka qabta.